Asalaamu calaykum, kusoo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa calciumta faa'iidada u leedahay ilmaha, meelaha laga helo, cuntooyinka laga heli karo, sidoo haddii fuwaakii laga heli karo kale, cuntooyinka adiga dhammaan meelaha laga heli karo kale calciumta. Maxaa ka saacidi kara in calciumta jirka cunugii hadduu qaato uu jirkiisii uu ka faa'iideysto. Waxaa jirta in qofkii cuntada uu qaato laakiin jirkiisii uusan ka faa'iideysan. Marka haddii cunugii faa'iidadiisa ogaata ugu talagashay in cunugaada siisid si ugu faa'iideysan karaa in jirkii cuntadii cunugii siisay calciumta ku jirtay in jirkii uu ka faa'iideysto. iyo haddii calciumta jirka ku yaraato maxaa dhacaya. Intaas ayaan muuqaalka kaga hadli doonaa insha Allah. Soo dhawaada haddii ay tahay markay kugu horeyso aan soo booqata subscribe noo saar gambalaalkana furo si fiidiyowyada cusub kuu soo gaaraan. Haddii familka ay ka tirsan tahayna like noo saar, asxaabtaadan u sii share garee. Soo dhawaada mar labaad. Faa'iidooyinka calciumta ay u leedahay jirka bani'aadamka gaar ahaan carruurta waxaa waaye in ay dhisto lafaha, sida lafaha inay dhisto ilkaha ilmaha markay ay yar yihiin oo kale oo xilliga korashada ku jiraan ilkaha usoo baxayaan oo kale in cunug ilkiisa ay noqdaan ilka caafimaad qaba oo xoogan, in cunug lafihiisa ay noqdaan lafa caafimaad qaba oo xoogan inay noqdaan oo kale, kala goosiyada iyo murqihii dhammaan caafimaadka dhismahooda korashahooda qayb weyn ayuu ka qaataa calciumta. Haddii cunuga calcium uusan helin korashihii lafihii ilkihii murqihii kala goosiyada inta waxaa ku imaahaya qalal ayaa ku imaahaya. Faa'iidada kale uu leeyahay oo caafimaad ahaan uu leeyahay waxaa waaye inay nidaamiso garaaca wadnaha ayuu faa'iidaha ayuu leeyahay. Sidoo kale calciumta haddii jirka ay ku yaraato oo cunuga jirkiisa ay ku yaraato maxaa dhacaya. Waxaa dhacaya in dheefshiidka cunugii uu culeys noqdo. Haddii calciumta inta loogu talagalay cunuga jirkiisii uu ka yar yahay in cunuga dheefshiidkiisii culeys ku imaado ayaa dhacaysa. meelaha laga helo maxaa waaye marka calciumta haddii faa'iidooyinkiisa way badan yihiin laakiin anaga intaan ku soo koobina insha Allah muuqaalka inuu dheeraado ayaa naxeena. meelaha laga helo cuntooyinka laga helo maxaa waaye waxaa laga helaa caanaha iyo waxyaalaha caanaha laga soo saaro sida subaga, yogurtka oo kale, yogurtka caanaha laga sameeyaa, yogurtka, subaga, caanaha intaas oo dhan waa laga helaa calciumta. caanaha kaliya maahan meelaha laga helo meelo kale laga helaa sida waxaa kamid ah oo kale malabka shinnida oo kale waa laga helaa oo calcium fiican ay leedahay laakiin waxaa la rabaa in cunuga markii uu sanad xagga u dhaafo oo bilaabo intuu sanadka yar yahay caafimaad ahaan uma fiicno. malabka waa daawo saydiinteena noo sheegtay. marka cunuga hadduu uu sanad xagga u dhaafo kale ana bacteria waxaa jirto oo malabka laga helo haddii cunuga sanad uu ku yar yahay kale waxaa laga yaabaa inay cabso baalki dhibaato u keento oo jirkiisii malaha difaaci loogu talagalay. marka sanad markuu xagga u dhaafo in la siiyo ayaa wanaagsan. sidoo kale calciumta meelaha laga helo waxaa kamid ah malaayga kamid ah sida malaayga nooca loo yaqaan toonaha oo kale aad ay ugu badan yahay calciumta oo malaayada laga helaa. waxaa kale laga helaa geedkan loo yaqaan broccoliga asagana xaddi fiican oo calcium ah ayuu leeyahay. waxaa kale laga helaa sisinta calcium ay leedahay oo Soomaaliduna way aaminsan tahay oo waxaa la dhahaa sisinta cunug uu roonaa haddii saliid tahay oo kale haddii cabitaan tahay cunug laftiisa dhisiha lagu dhahaa xataa hooyooyinku waxay ku dhahayaan massage ugu sameeyo cunuga marka uu qabo sidoo kale basha karin oo mar lahayd ayadu massage ugu sameeyo ugu daliig sax waayna caafimaad ahaan oo wixii ku saxsan yihiin hooyooyinka Soomaaliyeed. sisinta waa caafimaad oo waxay u fiican tahay korinshaha lafaha ilkaha murqaha ilmaha kala goosida dhammaan caafimaad ayay u tahay. cunug caanaha ugu dari kartaa cuntada oo asiin sidoo kale ugu dari kartaa bedelkii cadayda cuntada ku kala leedo kale ayadu ugu karisad ayaa caafimaad ahaan fiican li'aana cadayda caafimaad ahaan ma fiicno ayada caafimaadka dib ku ah. marka tan aawal hubo caafimaadkeedii in uu wanaagsan yahay waro ay ka qaalisan tahay saliida kale ee cadayda hada Soomaalida ay isticmaalaan laakiin qaalinimadeeda fiirin ee waxtarkeeda iyo caafimaadkeeda ka fiiri cunuga wixii faa'iido u leedahay. fawaakiyada laga helo kale maxaa kamid ah waxaa kamid kale oo calciumta laga helaa geedkan loo yaqaan canabka xaddi fiican oo calcium ayaa laga helaa. cananaaska oo kale xaddi fiican oo calcium ayaa laga helaa. burtuqaalka oo kale ayadana waa laga helaa xaddi fiican. fuulka laga helaa sida waxaa kale laga helaa jaalaha ukunta ayadana waxaa laga helaa calcium oo intaas aan ku soo koobaynaa meelaha laga helo. marka soo jirku uga faa'iideysan karaa
in calciumta cunto ahaanta cunuga oo siisay uu jirka uu ka faa'iideysto oo cuntadaas calciumta ku jirta uu jirka uu nuugo si uu jirka bini'aadamka uga faa'iideysan karaa. laba si uga faa'iideysan karaa in cuntadii aasiisa waxaan aanay hadda ka hor cunuga markay dhiig la'aan hayso kale oo anemia uu yahay oo jirkiisa birta ku yar tahay waxaa lagu dhahaa cunuga waxaa siisaa cuntooyinka birta ku badan tahay. cuntooyinka birta ku badan tahay marka cunuga siisid cuntadii jirka asaga kaligiis inuu dhuuqmo yaqaano laakiin waxaa jira waxyaalo ka caawida sida vitamin C oo kale. marka cuntada waxaa la dhahaa markii birta cunugii uu dhiig la'aan ay tahay oo cuntooyinka birta ku badan tahay oo kale sida beerka ay siinaysid waxa ugu dartaa vitamin C oo kale sida limonada oo kale xaddi fiican laga helaa iyo bambalmada oo kale iyo burtuqaalka oo kale. marka calciumtana sidaas oo kale waa oo cunuga markii cuntadii calciumta ay ku badan tahay sidoo kale jirkii wuxuu u baahan yahay wax ka saaciday cuntadan calciumta ku jirta inuu jirkii nuugo. maxaa ka saaciday laba shay ka saacidayso tan kood waa vitamin D tan labaadna waa vitamin C. markaas ay ugu saacideen vitamin D da waxay ugu saaciday oo jirkii cuntadii cunugii uu qaatay markii cuntada uu qaadanayo kala jirkiisa vitamin D fiican xaddi loogu talagalay cunugii uu haysto waxa dhacaysa in si fudud cuntadii looga nuugo calciumta ku jirta jirkana uga faa'iideysto cunug lafiisi caafimaadkiisa koronshigiisa looga faa'iideysto. marka xagga laga heli karaa vitamin D da vitamin D da ayadoo goojaha jirto ilmaha la siiyo waxaa kaloo laga heli karaa qoraxda waxaa kaloo laga heli karaa jaalaha ukunta. waxay raaleeyada waxaan vitamin D waxa laga heli karaa qoraxda oo kale in cunuga subaxii galin hore ilaa iyo 5 subaxnimo 12 subaxnimo kale inta laga gaarayo cunuga qoraxda u soo bixisid 9 saac wixii ka dambeeya inta dhaxoodo horadii ah qoraxda ay kula shaqo kale cunugii ina ka xariisid laakiin subaxii hore inta qowdahay iyo galabkii inta qowdahay in cunugii garan iyo buuma kaliya ama ogaanay bambar bis inta u soo xirtid qoraxdii ay keentid lugiisi gacmihiisa iyo banaayihiin si vitamin D oo helo qoraxda kale maan cunuga dharqoto ina meesha banaanka keentid waa cunugin lugaha gacmaha u banaayihiin garan iyo buuma ama garan iyo bambar bis oo wato si qoraxdii uu cunuga jirkiisa uga faa'iideysto. jaalaha ukunta oo kale vitamin D laga helaa ayadana. okay vitamin C ga ayadana wuxuu qayb weyn ka qaataa in calciumtii laga nuugo cuntadii uu jirkiina ka faa'iideysto. marka calciumta ay vitamin C da ayadana xagga laga helaa cuntooyinka laga helaa maxaa waa burtuqaalka laga helaa ayadana waxaa laga helaa geedkan loo yaqaan farawlaha waxaa laga helaa geedkan asagan loo yaqaan saytuunka waxaa kaloo laga helaa yaanyada. Soomaalida yaanyada horta inta badan waxay u dhahaan nafaqo ma lahan nafaqo way leedahay vitamin C fiican laga helaa oo nafaqo la'aan way jiraan laakiin yaanyada kama mid ah cuntooyinka nafaqo la'aanta keeno kama mid ah in vitamin C da waliba xaddi fiican oo vitamin C ayaa laga helaa yaanyada. marka waxaa laga helaa geedkan farawlaha ama strawberry-ga waxaa laga helaa yaanyada waxaa laga helaa saytuunka waxaa laga helaa kala burtuqaalka waxaa kaloo laga helaa liin dhanaanta oo kale waa laga helaa vitamin C. marka cunuga hadii aragtid oo kale in calciumta ay ku yar tahay waxaa fiican cuntooyinka hadda ka soo hadalno calciumta ee laga helo in cunuga siisid marka siinaysid oo raacisid vitamin D oo kale iyo vitamin C gan vitamin D waxa ugu raaci kartaa oo kale in jaalada ukunta inta karisid asiisin cunugina qorax fiican oo helo si jirkiisa cuntada uu qaato calciumta ee jirka uga faa'iideysto iyo vitamin C daas in siisid ayadana. okay hadii marka cunuga jirkii calciumta uu inta loogu talagalay ka yartahay cunugina uu yar yahay maxaa ku aqoonsan kartaa waxa ku aqoonsan kartaa oo kale in cunug lugihiisi sida loogu talagalay sanahan kale wax yar aad dareentid inay ku jirto تخوص وحريرة هاجرو وعنق لويس وحير إنه جدين أو مليسيد وكله عنق لفيه سيد اللي طلع إنه تاجين وكل إسنهين وعنق جلجلة عكدين تقدرين تده وكل لفتيسي إسن أتكين إن عنق لويس وكله وحير أي جدين لفتي لنا جده وجدين تهو كله قدرين تده وكله أو أركي كرتا muuqaal waxa jir aan kaga hadalnaa fi hadii calcium jirka ku yaraato maxaa ku aqoonsan kartaa ilmo in calcium jirkiisa ku yartaa muuqaalan kaga soo hadalnaa jiro channelka ku jira insha Allah qofka baahan channelka ayuu gali karaa ka soo faa'iideysan karaa insha Allah intan ayaan rajaynayaa inaan ku soo gabagabeeyo muuqaalka hadii ay tahay markii kugu horeysa aan soo booqato subscribe noo sarkan balaalkana furo si fiidiyowada cusub kugu soo gaarana hadii familka ka tirsan tahayna like noo sar asxaabtaada noo sii share gareeso dhawaada.